madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo salaadii Jumcaha maanta masaajidka isbaysiga kula dukaday qeybaha bulshada ayaa sheegay in Soomaaliya lagu calaamadeeyay dal fuqaraa ammaan aan ahayn taasina ay tahay labada shay ee ugu xun dhanka nolosha. madaxweynaha sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday weerarkii Pizza House oo tilmaamay in lagu laayay dad aan waxba galabsan isagoo tilmaamay in falkaas uu yahay mid aan wanaagsanayn. annaga image xumada ama magac xumada haysata caalamka naga haysto waxa weeye oo loo yaqaan Soomaaliya annagoo Ilaahay nagu nasteexeeyay dad muslimiin oo islaam inaan nahay dad wada dhashay inaan nahay waxaan ugu calaamadeeyay inaan nahay dal aan nabad ahayn oo aan amni lahayn iyo dad fuqara ah oo dhaqaale xumo haysato waana labada ugu xun ee ka soo horjeeda nolosha bini aadamka. maxaa noo keenay marka arrintaas waxaa noo keenay xaqiiqiyan waxaa loo baahan Ilaahay inaan noqono Ilaahay inaan ku xamdi noqono waxa uu na siiyey haddaynan ku sida ogtihiin daraad dad masaakiin oo meel ka qaxweynayo oo waqti Ramadaan ku jira yaa dad sheeganaya magac diin ku socda waxay laayeen wax alla wixii meesha joogay caruur ahaa gabdha ahaa duqay ahaa oo meesha ku afuray maxay galabsadeen maxay geysteen dadkaasi waxaa lagu laayay magac muslim yaa lagu laayay muslimkee weeye kan qaba in dadka la laayo in naf la xalaalaysto diintee qabta waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha magac xumada iyo sharaf xumada loo keenayo oo caalamka noo tusay inaan nahay dad bahalla ah haddaan mas'uuliin nahay su'aalaha ugu adag oo nala weydiiyo aan ka jawaabi karin waxay tahay war maxaa ku dagaalaysaan colaad iska socota iyo dhibkeedu ku socda muxuu ku salaysan yahay waxaan ku macnayna ma naqaan markaan niraahno war Afrika waa dhex gasheen xarbu ahal meel kastoo adduunka ka dhacay maxaa anaga noo fiirin weydeen jawaabtu ugu sahlan waxay tahay bal noo macneeyo waxaad ku dagaalaysaan waxaad noo sheegtaan inaad tihiin dad isku maxaan ku raahdaa. maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay qeybaha Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo soo celiyo ammaanka iyo xasilinta dalka Soomaaliya isagoo sheegay in horumar la gaari karo haddii lagu shukriyo khayraadka la haysto leesna aamino. Cabdullaahi maxamed Muqdisho.